dab geystay khasaaraha hantiyadeed ayaa caawa fiidkii waxa uu ka kacay inta u dhaxaysa isgooska Banaadir iyo sidoo kale isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho goobihii ugu badnaa ee ganacsiga halkan ku yaala ayuu dabkan baabi'iyay gaadiidka kala duwan ee gurmadka degdega ah ee dabdamiska sida shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa halkan ku sugan oo qayb weyn ka qaadanaya sidii dabkan loo damin lahaa waliba waxaa socota gurmadkii sidoo kale sidii dadka goobaha alaabaha ugu haray uga soo bixin lahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada ku sugneed goobaha ganacsi ee dabku ka kacay caawa ku yaala isgooska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa inooga waramay saameynta uu ku yeeshay dabka iyo xilliga uu kacay abaarihi cishihii markay tahay ayaa dukaamada meeshan ku yaala oo Banaadir bakaaro ahaa mid ka mid ah korkiisa dabku ka bakacay isla markii uu dabku ka kacayna waxaan maagnay ka u gurmada intii aan gurmadayna waxyaalo aan samaynay inaan wacno shirkadda korontada baako iyo aan wacno si aan gurmad ku helno iyo baabuur isla markiiba shirkadda inay ilaahay noo mas'al inay ka jawaabaan ama ay si degdeg ah noogu soo maaragtay gurmadaan dabkii waa hadiiba arday dhan uu qabsaday adoo marka alxamdulillah rabbil caalamiin wixii dhaba waa gubteen suuqii meeshaan ku yaalay waxba kama cayman waa u jeedaaro sidaas oo noqday alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa dadka xoolaha siiyay shalaba haddana ilaahay waxaan subxaanahu wa ta'aala dadkaas ilaahay ha caansho waa dad Soomaaliyeed oo waxa weeye ganacsato ahaa oo maxaa la yiraahdaa saacado ka hor hantiilayaal ahaa marka hadii la ku ron yahay waa sidaas ilaahay waxaan leenahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leeyahay ha caansho waxaan ugu dhacay caawa khasaare xoog leh ilaahay baa ka alxamdulillah ilaahay baa nasiya haddana ilaahay baa nasiya doono wixii dhici raba ayaa ka dhacay hanti weyn baa ku khasaartay aad iyo aad dib weyn ka dhacay alxamdulillah ilaahay baa ma iska leh wixii dhici raba ayaa ka dhacay wax dhib oo kale barbaleema ma dhicin ayaa musiibo ilaahay xaqiisa ka timid hadda hantidii wixii waa ku baabeen waxaan kala baxnayna male wax alla wixii ilaahay yaraato ha badnaato aad iyo aad ayay khasaaro u dhaceen waxaasoo dhan waa dabay ka kaceen koronto ayay ka bilaabatay hadda wax kale oo dhiba ma jiraan intaas ka dhacday wixii hantiyan waa ku baabeen hadda arkay ama ay muuqato khasaare aad u xooggan oo hantiyadeeda laakiin inta arkay khasaarad nafeed oo muuqato oo inta bal dareenka dadka sidoo ah markuu dabka kacay aad waxa ugu xumahay waliba ku gurto hooyo Soomaaliyeed oo inay hantiyadeeda khasaare aad u gaartay agaasimaha gurmadka degdega ee gobolka Banaadir Cabdiqani Maxamed Dhaloole ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay gurmadka ay sameeyeen maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan daminta dabkaasi waxaan joognaa dabkii ka kacay caawa fiidkii isgooska Banaadir runtii oo ahaa dab aad baaxad weyn oo qayb badan oo kamid ah ganacsiga ku yaala goobtaasi wada qabsaday runtii dadaal badan oo ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir qayb ka badan oo hadda la damiyay xoogiisii waa ku guulaysanay inaan damino qayb badan oo hadda wali waa dhimanna waa jiraan oo damintiisa aan ku mashquulsanahay runtii khasaaraha ilaa hadda uu geystay ma qiyaasi karno marka aan soo afjarna ayaan sheegaynaa wixii khasaaraha iyo baaxadda uu leeyahay dabku waxaan ku mashquulsanahay hadda waa damintiisii shaqaalaha gurmadka degdega waxay ku mashquulsan yihiin si ay u damin lahaayeen waana rajaynaynaa inaan soo afjarna saacadaha soo socda waa naga tacsiinayna cid kasta oo maaragtay Soomaaliyeed oo runtii dadkaas waxyaalo ka soo gaartay Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh Universal TV